ninkaaga inta ma fadhiyaa maya ma joog ninkaaga in Saciid la xataa been miya ya waaldaha maxaa Saciid Abdullaahi Maxamed Allah jabhadaha safarka markay ka yimaadaan inay u dhaqi jireen dharka haweenkan ayaa qawaariijtu u hayay howlo ay ka mid yihiin basaasid dabagal diyaarinta sahayda dhaqidda dharka maleeshiyaadka jabhadaha ah habeynta caagadaha biyaha lagu qaato iibinta agabyada kooxda ay uga baahan tahay Muqdisho iyo arrimo kale oo argagixisada loogu adeegayay Shukri Cali Cumar Warsame oo afgarash ahaan loogu yeerayay Canab ayaa sanadkii 2021 qawaariijta kaga biirtay deegaanka Dac oo Ceelbur hoostaga kadib tashkiilinta dhagarqabe Saciid Cabdullaahi oo saygeeda ah argagixisadana wakiil uga ah gobolka Galgaduud gaar ahaan qaybta aruurinta lacagaha sida baadda ah ay uga qaataan shacabka karinta raashinka dhaqidda dharka maleeshiyaadka diyaarinta sahayda sida oodkaca iyo buskudka oo si joogto ah ay u qabanaysay marka laga soo tago waxa uu dheereed dabagal iyo basaasid ay ku haysay ganacsatada deegaanka Dac ee Ceelbuur si qawaariijta lacaga sharci darro ah uga qaataan Muqdisho waxa ay ka qabatay dhagaro ay ka mid ahaayeen in loo diray maqaayad lagu shaaho oo ku taala aagga argada Daynile si ay warbixin uga keento rag sawiradooda loo diray oo kooxda horey uga tirsanaa iskuna dhiibay dawladda waxay indheindeen u tagtay Hotel Beach View oo xilligaasi maalba ka hor la qarxiyay xogta iyo dhaqdhaqaaqa halkaasi ka jiray ayaynu u gudbisay horjoogihii xukumayay Shukri Cali Cumar oo gacanta hay'adaha ammaanka soo gashay 23 bishii 12aad ee sanadkii hore ayaa galkeeda eedda sidoo kale waxaa ku jira taleefano dhar iyo alaabo kale oo Muqdisho ay uga iibisay argagixisada una saartay gaari waana kan xafiiska xiraalinta ciidamada qalabka sida oo maxkamadda sharaxaad dheeriya ka siiyay howlihii qawaariijta ay u haysay soona bandhigay cadeemo ku saabsan macluumaadyo laga helay taleefankeeda gacanta shaqada koowaad ee qabatay ee kooxda Al-Shabaab waxay u dubi jirtay buskudka iyo doorashada waqtiyada dagaalka iyo waqtiyada nabadda ayay u sameyn jirtay waxay kale oo argagixisada u toli jirtay saabka ama la yiraahdo caaga waxay kale oo u sameyn jirtay waa kana saabka ay sameyn jirtay fiidiyogeeda waxaan ka helnay mobilkeeda caagan muuqda waaye caagadaha dhabarka ka muuqda fiidiyoyadan waa fiidiyo mobilada laga soo saaray ee ku jirto 67 fiidiyo ah mobilkeeda ku jiraan waxaan haynaa lambarka isticmaalaysay caagadaha dhabarka ay ku wataan waaye oo biyaha qaboojiyaha la yiraahdo waxa kale oo jirto ay sameysay iyada iyo shan kale oo dumar ah ee ka mid tahay caasho inay la shaqeyn jirtay oo u sameyn jireen waxyaabaha u karin jireen raashinka waxay kale oo sheegtay in jabhadaha safarka markay ka yimaadaan inay u dhaqi jireen dharka hatta dagaalan fara badan ama qaaxida markay dhacday inay ku farxi jirto oo aad u riyaaqi jirtay waxay kale oo sheegtay inay dabagal ku sameyso dhowr qofood oo ka soo goostay ama ka yimid jabhadahaas oo isku soo dhiibay dawladda oo aan ku xuseynin la yiraahdo Sakariye iyo Cali waxa kale oo jiro in magaalada Muqdisho xeebta leedo iyadan dhowr jeer ay soo indheysay meesha la yiraahdo Hotel Beach View waqtigii qaraxa dhacay kadib iyo ka horbo waxa kale oo jiro in nin joogaheeda la yiraahdo Cabdisaaq Caamir uu u diri jiray maqaaxiyaha ku yaal ama degmooyinka Daynile oo dhowr jeer uu dadka iyadana sheegayso waxa kale oo jiro in Cabdisaaq uu u diri jiray fariimo oo isdhaafsadeen mobilkan ku soo bandhigi doonaa waxaan dhan waa qiraaladeedii iyo waxyaabahan laga qoray waxaan rabnaa in dhaqdhaqaaqii waa ka fiidiyoada iyo sawirada ay mobilkeeda ku jiro iyada isticmaalaysay diri jirtay waxaan dhan tan waa dhaqdhaqaaqii mobilkeega iyo lambarka isticmaalaysay lacagaha loo diro waa ka $40 iyo ku jimid yihiin ninka Cabdisaaq u soo diri jiray iyo wadaadkeeda Saciid Shooke ka kala waa dhaqdhaqaaqii waxaan rabaa inaan ku dheeraado mar rabo $40 oo lambarkaas isticmaalaysay iyo lambarkeeda waayo oo ah lambar samnada Shukrina waxay ku eedeysan tahay inay gabaad siisay qof inta la soo shaqeynayay kuna ogeed ka horna la shaqeynaysay in gurigeeda ku hayso xataa waxay kala sheegtay habeenkaas inay la xiriireysay horjooga kale waqti dheer ku qaatay xataa wadaadkeeda uu ka shakiyay maxay tahay hadalkan la sheegay wax noocaas ay ka qariyeen maxay ku tahay gabadhaas gabadhan walaashii waa maxay ku tahay dasto dhacda ilmahayga iyo dadood waa ilmahayga iyo dadood waa hadda iyada ma la joogtay xaafadda isla joogin
waa kaa iyada maxay qabataa waxba ma qabat xaafadeeda joogta ninkaaga naanaystiisa magaciisa naanaas ma laha sheekadan oo afarta beej oo qortay wax ma ka jiraan miya hadda hal xaba kama jiraan hal xabana ma qoran waa iga been abuurahaya ninkaagana siciid la xataa been miya ya waa la dhahaa maxaa siciid abdullaahi maxamed la dhahaa laakiin inta ay sheegaan xabad kama jiraan anoo iska socdo xaafadda ka soo tagay xaafad kale u socdo wadada iga soo qabsadeen waxa ku soo bahalka iyo magac ma halay kana waxba iima aysan sheegin waxa ku soo sheegay wiil la yiraahdo kaas ma ii sheegeen security oo la yiraahdo Jaabir waxay ahaatay sheeg joogi jiray meesha ila joogi jiray waxay ka soo qorana ninkaas aan noo sheego hadaladaas aan ka qorna afkooda dadka baaraha ay dhahaan beenanay sheegan baaraha beenanay sheegay wiligeena shaabana walaasha mustaqim inta ku noosha ceelbuur joogta ha ma ka yarta may mustaqim ninka qabo magaciisa ma bal qabo ilmahaaga aawan hadda xijraan ceelbuur afar waa meeqa jir ugu yar 3 jir caasho cabdullaahi kooke ayaa iyana halkan u taagan eedda ah ka mid ahaanshiyaha argagixisada iyo inay gabaad siisay shukri cali cumar oo uu qabay walaalkeed khawaarij ah iyadoo ka war haysa dhagaraha ay qaybta ka tahay ayayna qarinaysay muddo dheer qof wax isku ogna meel dambi ay kula soo maad bariyaana ka aawo telefonkeedu waanu telefonkeedu arag soo qaada leeyiri waa waaye waa ka soo tagay ninkeeda ma qaan biyo ma joogo jira ninkeeda ma qaan laakiin ninkeedu wuxuu jiraa ceelbuur jiraa dacu jiraa dac muxuu qabtaa harqaar u tala shabaab miya maya walaalka ceelshil joog ma jir ceelshil walaalkay way joogaa dacna wuu joogaa laakiin aniga shabaab shaqo kuma dhigi bariyanka ah mana ay soo galaan aniga lugtaydan ku imiday ana mootada soo baxsaday ana imaaday ana soo heebshay ninkaaga ku inta fadhi ku jira ninkaaga inta ma fadhiyaa maya ma joog baaraha kiiskan ee hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ayaa maxdarkan ku biirisay natiijadii ka soo baxday baaristeeda ku-xigeenka xeerraaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida gaashaanla dhexe Axmed Iimaan Maxamed ayaa maxkamadda ka codsaday in eedeysanayaasha ay ku xukunto qodobadii ay ku soo eedeeyeen ku bixisay in siisay inaan soo gudbino labadan eedeysanayaal oo ka tirsan ururka nabadiintiga al-shabaab waxaa lagu soo eedeynay ama ka mid yihiin ururka al-shabaab oo ah urur hubeysan lidku awoodaha qaranka una qaabilsanaayeen istidlaaca macnaha basaasnimada iyo dabagalka iyo in xoga loo gudbiyo isla markaana gacan ku siinayeen dubidda buskudka iyo xalwa buskudka iyo keega iyo inay u tolaan saafka waxay kale u sameyn jireen in dharka ay u dhaqaan kuwa jabhadaha waqtiga ka yimaadaan xilli dagaalka waxaa kaloo ay sameyn jireen qaraxyada magaalada ka dhaco inay u basaasaan ama u gudbiyaan ay ka mid tahay Berma Beach iyo Lido dhowr meel ay tagtay sanadda koowaad waxaa kale oo mobilkeeda ku jiro dhammaan dacwadaha ama maxkamadan ciidamada ay gasho inay u diri jirtay mobilkan oo iyada ay leedahay oo ku jiro ilaa 67 fiidiyooyo iyo sawirro ay diri jirtay dadkay basaasaysay ay ka mid ahaayeen rag ka soo goostay ama ka yimid ururkaas ay dabagal ku waday sawirradooda loo soo diray dhaqdhaqaaq waxaa lagu soo qabtay iyadoo ku hoolan sawirkii loo soo diray nin ka mid ah ama nin ka soo goostay jabhadahaas ama isku soo dhiibay dowladda oo lagu magacaabo Cali taas oo sawirkiisa ay waday isla markaana lagu soo qabtay operation oo la ogaay xogteedii oo dhameystiran iyo dhammaan waxaa kaloo jirto in maqaxyaha qaarkood ama goobaha qaarkood ay tagi jirtay macnaha ay fadhiistaan askarta ay ka warbixin jirtay ama gubi jirtay sawirro qaarkood loo soo diro waxaan kaloo haynaa mobilkeedii iyo lacagihii loo soo diri jiray dhaqdhaqaaqa lacagaha intaasoo dhan maadaama ay marag nooga tahay waxaan maxkamadda ka codsanaynaa eedeysanaada koowaad in lagu qaado qodobada aan ku soo eedeynay oo ah maadaama ay qiraal tahay ayna qabatay afkeeda ay ka sheegayso laga qoray 16 shaqo inay u soo qabatay kooxdan argagixisada lana shaqeynaysay waxaa kaloo eedeysanada labaad ku soo eedeynay inay gabaad siisay qof ceenkaas ah oo shaqooyin fara badan u soo qabtay maqlaysan ogeyd horena ay iskala soo shaqeyn jireen gurigeeda goobteeda ku sheegay kana qarisay ninkeeda wadaadkeeda markii la weydiinay ay tiri waxba kama ogi markii la soo qabto la keenana mobilkii in muddo laga rabay saas noo soo xiray gurigeedana laga soo qaaday mobilkan oo xogtaas ogaanta ku jiro saas daraadeed maadaama qiraal ay yihiin dhaqdhaqaaqii mobiladan aan keenay fiidiyooyin fara badan ee mobilkii ku jiraan iyadana waxaan ka codsanaynaa in lagu qaado
qodobka ah gabaadsiin maadaama mobilkaasna ay qarisay eedeysadana ay la nooleed waqti dheerna qarinaysay maxkamadda waa maasantay qareenka difaaca u ahaa eedeysanayaasha ayaa sheegay in muwakkiliintiisa aan lagu hayn cadeymo dhammaystiran in la bari yeelo ayuuna maxkamadda ka codsaday mudane garsoore marka hore xafiiska xiraalinta eediisa nuxur ahaan iyo qaanuun ahaan xagga qodobada iyo xagga erayada u isticmaalay sinaba isma waafaqsano taa haddaan ka gudbo qiraalka haddaan u gudbo mudane guddoomiye qiraalka xafiiska garsoorka uu ka qoray maxkamaddana ay u akhrisay maxkamaddana hortooda ay ka inkiraan ay dhaheen annagu qiraalkaasi ma lihin videoga la soo bandhigay videoga mudane guddoomiye garsooreyaal waxaa laga soo dejiyey TikTok waayo markii la shiday aaladda TikTok oo webka la wada isticmaalaa amba ayuu ka dhex muuqday haddee shay baraha bulshada laga keeni karo oo suurtagal ay tahay in baraha bulshada lagu arko haddii lacalaba telefoon qof lagu arko macnaheedu waxay ka dhigan tahay inuu asaga qofkii yahay al-shabaab absolutely maya telefoonkaaga ayaa laga helay video al-shabaabnimo saasaa adigu al-shabaab ku tahay absolutely ma suurtagal maa mudane guddoomiye garsooreyaal marka caddaymihii la soo bandhigay oo caddayn u eka lahaa inta haddaa u gudbo mudane guddoomiye garsoore mar haddii aan la keenin makhraatigii warqadda ugu qornaa mar haddii aan la keenin wax kale oo caddaynayo inay shukri tahay al-shabaab ayaduna ay sheegtay inay caafimaad meesha u timid annagu waxaan ku waafaqsanay inaysan al-shabaab ahayn haddaan u gudgalo caasho mudane guddoomiye garsoore caasho way sheegtay waa gabar deegaana muqdisho degan carruur ku haysato wadaadkeedu ka shaqeeyo soo suudaan ayadoo al-shabaab ma ah ma qiranin qiraalka maxkamadda laga horqariyey oo ayaduba hadda maxkamadda ka hor inkirtayna kumaysan qiranin baaristana kuma qiranin keliya waxaa loo haystaa maxaad u soo sheegi weyday shukri oo adigu marti ku aad shukri ayadoo al-shabaabnimo kumaysan ogeyn low ma hadda ku ogaan lehed dabcan way sheegi lehed walaalkeed baa qabo waa ehelnimay ugu soo martiday saa darteed mudane guddoomiye garsoore mar haddii aanan caddayn la keenin caddaynta ay maxkamadda ay u soo gudbisay xafiiska xeeraalintana caddaymo maangal ah oo suurtagalna aysan ahayn oo caddaymo loo ekeysiiyey waxaan maxkamadda ka codsanaynaa xorriyaddooda dib loogu celiyo maxkamadduna mahadsantahay saas daraaddeed waxaan codsanayaa hadday dacwaa joogi jireen hadda dacba joogaan mana inay tegin maxkamadda ciidanka maanta hortaagan yihiin waxaan ka codsanaynaa in ay xorriyaddooda buuxda u celiso oo mataqaanaa qof walba gurigaa aad ay tidhaahdo wabilaahi tawfiiq maxkamaddu waxaa ka codsanaya in xorriyadda leeysi maxkamadda waxaan ka dalbanaa inay xorriyadeyda siido anagu inaanan shabaab ayn shaqana kula haynan oga gaashaanla sare xasan cali nuur shuute guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaana ugu dambeyn fadhigan soo xiray cabdiraxmaan gacan warbaahinta qaranka muqdisho